بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا خيارتي أصعبتان جعلها يا جنة الكينواني وعي جرين كحران ولا ليال سود هذا لما ولا لها نوعصب نشاء رحمن يجنو سدوين نحلين سود هذا ما تشاء رحمن وحايدين وذا وحيتا قراعي رويسك فضوت وأن رجيني ما أرغتا انتي نبضان إني أرغتي أما تقانا أي سميين ويقانان marka shaa raxmaan ana iska jeclaadayna idin la wadaago quraacdaasna waxaa waay pancake marka shaa raxmaan sidaan u sameeynay markii aan soo dhameynay waxyaabaha adeegsanay waa kana horta markaan soo dhameynay saani ku soo baxday quruxda badan loo jeedin maxay heetoole waxyaabaan marmarinay marka shaa raxmaan waxaan marmarinay iyo waxyaabaan u baahannahay waa kuwana soo dhawaada waa kana marka waxaan u baahnaa waxay tahay subag ama batarka ma aragtaa rootiga la barsado subag caadi saliid isticmaali kartaa waa kana intan waxa noogu jirto waa ukun laba xabo oo qaybta gaduudan intan waa sokor iyo ma aragtaa carfisada vaniliyada oo keega lagu daro iyo koobkaas caanaha soo qandacinay intan waxa noogu jiro waxay tahay ukunta qaybteeda cad waxaa la sameyn doonaa insha Allah haduu Ilaahay maydin ukunta qaybteeda cad iyo sokorta iyo baashi iyo maarta carfisada la isku soo garaaca marka hore insha Allah intan waxa noogu jiro waa bur iyo baking powder markaan qaybta cad iyo ma aragtay sokorta iyo carfisada isku soo garaaco insha Raxmaan qaybta kale intoona gooni oo qasi doona markaas insha Allah isku geeyna oo isku daraaya ka dhan marka waxaan ku bilaabaynaa waxay tahay burkii bakinki meeshaas noogu jiray bakinka qaadada yariista mugid la isticmaalay marka waa kaas labada xabo ukunta shaarkeeda lagu daray haddana waxaan ku dari doonaa caanaha kadibna subagaan ku dareynaa kadibna waa soo qaseynaa tii kale oo aan gooni u garaacnayn insha Allah isku soo dari doonaa markaan isku soo dardarno oo dhamaantood ma aragtay isoo dhexgelinin insha Allah Raxmaan waa kana markaan inuu soo baxday oo jeedin ما شاء الله تبارك الرحمن عجين يرو ما أركتا isaga dhanbo aad iyo aad ma aragtaa u jilcan qurux badan oo noqday marka waxaan kala soo diyaarsanay waxay tahay waa bast lagu dubi lahaa isaankan soo saar leen insha Allah Raxmaan hadda marka waa bilaabeena insha Allah haduu Ilaahay ma dhihin marka waa lagu shubaa markaan insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo qaadadaas soo qaadanayna adi wax ku qiyaastida fiican marka waa ka qaadadaas mugeeda ku shubi doonaa bismiillah markaasito asaasan ku sugi asaas markaan ugu shubno waxaan sameeynaa xitaa waan sugeynaa ilaa saliid iyo waxbana ma marinin xasuusanaada birta ma aragtaa way qalantaa xul ma marinin almuhiim waxa way birtaada inay tahay bir aan waxba kaaga dhageynin lagadi kaaga dhageyso waxa way wareer way marka waa kana waxa la sameeynaa asaas markuu indho u soo yeeshan insha Allah waxaan sameeynaa xitaa waa gidinayna dhinac kale u rogeynaa anagu saliid iyo waxba aan dusha ka marinin qayban soo dubay waa kaas ma aragtaa saaragtaan ku soo baxay iska quruxda badan ma sha Allah hadda marka waxa la sameeynaa waxay tahay kana soo rogeynaa insha Allah hadda waxaan wasleeyaa noo diyaar waa kana indhahaas markuu soo yeeshay welin cajiinkii ma aragtaa uu wada qalalin waa la roga hadda marka insha Allah Raxmaan waa ka soo hadal dhinac kale u rognay marka waxa dhacaysa waxay tahay inuu ma aragtaa soo furfuray xogaa kor u soo kacaysan marka qaadada ama wixii ma aragtaa markaas ay ku gudinaysta mindi waxa istilaadi dusha uga riixriix insha Allah saasa loogu riixriixa si ma aragtaa soo furitaanka looga baabi'iyo hawada gashay looga saaro marka waa kaas insha Allah Raxmaan saasaan ku wadeena asaga dhan waxaan sameeynaa waxay tahay hadda insha Allah cabaar markuu saarnaado daqiiqad camalne dhinaca kale u rogeena insha Allah waa arkeena markuu soo baxo dhinaca kalena soo uga gaduuto hadda waa roga marka insha Allah waa kana markaan rognayna saas uu noqday qurux waa dhinaca kalena ma sha Allah saliid iyo hawle iyo wax ma u baahna bas ma sha Allah iska qurux badnaaday marka hadda waxaan sameeynaa waxay tahay mid kale aan ku soo shubi doonaa insha Allah sayla aragtaan midka labaad midkaas labaad idin la wadaaga insha Allah hadda ku shubeena ujeedin qiyaasta waa muhiim ma aragtaa maxay toole waxbana adi qaadada iyo ama furka canjeerada ku dubeysta dhaxmarinin saas la ugu shub insha Allah isaga ma aragtaa ma sha Allah iska noqon doona waa kaas hadda kii kale intoona uu noo soo fuuray hadda waxaan ka wada cafwan uu noo soo ma aragtaa xogaa indho noo soo yeeshay hoosna waa ka gudud mar hadduu indhahaas yeesho hadda waxaan sameeynaa waa rogeynaa marka
waa kanahay hal gacan markaa gacan ku duubaysid gacanna maxay ahayd tole kaamirada ku haysta saana kugu dhaceyso softiyaan soo qaatay softiga faraha la isaga tirtira ujeedin dhibaata ma jirtay meesha cajiinka iga halaabayaan maaragtaa isaga tirtiray sidii si lamid ah baan sameyn doonaa maaragtaa baashaas saas ugu riixriixayna aan ku gedinayay si aan hawada iyo naqaska uga saaro oo maaragtaa fuuritaanka usoo fuuran uga baabi'iyo insha allah markan hadda waxaa la sameynaa waxay taasi dhinac kale u rogi doonaa insha allah sidoo kale baan sugaynaa daqiiqad dhinaca kalena markaan u rogno soo noogu soo baxay insha allah waa ila arki doontiin waa aragtaan masha allah waxaa waaye waa alaab yar oo iska fudud haddana ma aragtaa aad iyo aad u macaan badan masha allah waqaastan ciyaalka aad iyo aad u jecel yihiin markaasaa dhinaca kalena wuu gaduudan yahay waana sahal basiid waxaan ku dhahay waqti badan markaa qaadanaysa canjeerada aad iyo aad uga fudud yahay marka insha allah hadda waxaa waaye marka waa soo dhameynay markaasaa marka waxaan sameynaa hadda waxay tahay inaa ma aragtaa qof walba wixii dooqiisa loo marmariyo insha allah markaasaa marka waxaan sameeyey waxay tahay walaabaan soo diyaarsaday aan saddexdaas soo marmariyey alaabtana waatana waxaa weeyaan maxay ahayd toole meesha waxaa iigu jiro waxay tahay shukulaato aan maaragtaa meeshaas kusoo dhalaaliyey shukulaatada rootiga la marsado halkaasna waxaa noogu jirta malmalaato intana maaragtaa waa sokorta caanaha macaana noogu jiro oo sokorta leh marka waa kaasaa markaan soo dhameeyo oon kusoo shusho kuligoo soo diyaariyeen waa kaasaa alaabtan aad iyo aad u macaan badan tahay marka maalin walbo macaankaas in caruurta loo mariyo ma ahan laakiin markii maaragtaa isbuuci maalin oo kale intood waa iska caadi insha allah raxmaan laano aad macaankeedu u badan yahay soomaaso idinka arka 3 macaan la mariyay marka waa rajeynaa insha allah walaalay inaa ka faa'iideen fiidiyowgayga wax insha allah fiidiyowga wixii intaan kulmayno waxaan idinkaga tagayaa waxay tahay salaanta salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh